السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله وإيد السلام يالكستو أدونكات كجوكتان وولاشي الملك حسن محمد أويد الله عافيمادي برواقة كنا ولادا انت حنوصن الله سبحانه وتعالى عافية انت عافيماد خبتنا الله سبحانه وتعالى عز وجل هوزيادية لما انتين آدا يدومها سنتين سيدا وعني ونكسنا دي ركلسان نمر والبنادي لسعوتان برنامج دا قروح البدنايين سو قليو لما نحايدين لا هاي آدا يدومها سنتين فضلا inta cusub waan soo dhaweynayaa inta hore ila joogtana waxaan leeyahay nala sii joogo way dhiirigelintiina ayaan wax ku nahay maasha Allah hadaad nagu cusub tahay soo dhawow hadaa hore noola joogtana nala sii joog waxaan ku leenahay qalbi furan iyo niyad saafi ah walaal ku jecel oo kula jecel mar walba inay qeyrkan ii soo gudbiso dhamaantiina insha Allah ahbaabi fillah maanta waxa idin wadaa fariin maasha Allah fariintan hore looguma hadlin horeyna uma arag qof ka hadlaysa laakiin waa fariin ku socota dhalinyarada Soomaaliyeed siiba waxay ku socotaa ragga haddana waxay ku sii socotaa ragga bajaajlayaalka maanta waa u jeedin waan ila soo galay insha Allah laakiin khayr xaqiisana laga soo galay dhammaan asxaabay waxa idin leeyahay si share gareeya fiidiyoga hadii aad ku qanacdeen hadii aad ka hesheen hadii uu idin qanciyay si share gareeya insha Allah walaalihiina ka sii akrina waayo waxa laga yaabaa qof kasto faniintan ay soo gaarto inuu isbedel sameeyo oo iska bedelo sida hadda uu yahay si uu isku bedelo walaalka aniga waa u soo istaagay adigana u sii istaag insha Allah biidnillaahi kariim waxaan fariin u dirayaa oo halkan fariin ugu dirayaa fariin qalbi ka soo go'day aan u dirayaa walaalahayga qaaliga ah dhalinyarada bajaajka wadaan fariinta u dirayaan waxay tahay inay iska daayaan heesaha sameecad weyn badan waxa ku soo gaday $80 ama $60 ama $50 dhabarka dambaadan dhigatay sameecada maxaa kaaga shidan khayrba oo maya maasha Allah dhalinyaro aad u wanaagsan waa jiraan isku makiin daraayo dadka wanaagsan iyo dadka sanbirixooday waayo dad wanaagsan ayaa jiro oo qayrkana aad u jecel marka walaalahayga qaaliga ah inta sanbirixoota ayaa la hadlayaa waxaa tahay qof miskiin ah amaba aan nahay anagoo dhan dad miskiin ah balse waa la sii kala yahay waxaad ku nooshahay wadan ibtiisu ay iska badan tahay waxaa arkaysaa gaari weyn oo xamuul ah oo inuu habeenkii socdo loogu tirigalay oo maalinkii soconayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dawlad wanaagsan oo fiican wadankeena ha ka dhiso insha Allah biidnillaahi kariim waan arki doonaa ayadoo sidaas ay tahay markastana alxamdulillah inkastoo maalmahan aan ka nasanay ee iska dhacan qaraxyo walaal ha ku dhimanin qaatim xumo xitaa hadii aad ku nooshahay wadan nabad ah sababtoo ah hadii aad qaatim xumo ku dhimatid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cadaabtiisa way daran tahay ilaa cadaabtada naga fogay inta qaatim xumo ku dhiman lahayd walaal sameecada $50 ka soo bixisay waliba dadka dhagahooda ugu sii shubaysid xitaa qof hees aqoonin inuu hees ku xifdiyo laga yaabo bajaajkaaga dhexdeeda walaal maad badashid oo ku badashid khayr inaad quraanka shidatid inaad muxaadarooyin soo shidid gabar ah xijaabneen inaad ku soo raacayso waxaad ka shiday muxaadaro xijaabka ka hadlaysa ka shiday bajaajkaaga waxay ku saarneed 2 saac ama 1 saac ama 30 daqiiqo 30 daqiiqo gabadhaas inay isku bedeshaa laga yaabaa ee isku xishootay isfiiriso ee dhahdo maxaa waa nolosha aad ku nooshahay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay u noqoto waxa laga yaabaa muxaadaro salaada ka hadlaysa inaad shidid oo dhalinyaro salaada ay dhib ku tahay ee bartaas tusaale ay ugu noqoto ay salaada wanaajiyaan waan ognahay in badan oo anaga naga mid ah
waana ogtihiin in badan oo idin ka mid ah dadkii usoo halgamay diinta inay yihiin dhalinyaro. asxaabul ukhduudka aa maqlaysid indhahooda wax kala fur wuxuu ahaa cunug yaroo dhalinyaro ah oo aad u da'yar. dhalinyarada hadday istaagto dadkoo dhan waxay noqonayaan dad isbedelay. waxaa loo baahan yahay aan noqono aniga aan ugu horeeyo dhalinyaro tusaale u noqoto diinta, dadka diinta jecel. waayo jiilba jiilku ka dambeeyo ayuu tusaale u yahay soomaan. annaga dadaan ugu dayanaya hadda, dadaan wax walbo aan nahayn nugu dayanayo. social media inaan ku jirno dadaan ugu dayanayo. qofaa ku jeclaanaya, qofna wuu ku nacaa. mas-uuliyad ayaa ku saaran walaal. mas-uuliyaddaada ha dayicin. haddii aad reer leedahay mas-uuliyad ayaa kaa saaran. haddii ay gabar kula dhalato mas-uuliyad ayaa kaa saaran. hooyada adig ku dhashay mas-uuliyad ayaa kaa saaran. waayo wanaagga inaad u horseedid ayaa lagaa rabaa. xitaa waalidkaaga inaad wanaagga u horseedid ayaa lagaa rabaa. waayo bini aadan waaye. bini aadamka dhan waa qaldamaa. kuli ibni aadan qadaa. qaladka laakiin maxaa la rabaa in laga soo noqdo. ku dayo dadka wanaagsan. waxaad noqonaysaa qof wanaagsan. iska doondoon xitaa haddii aadan ahaynin. culimmadu maxay dhahaan markii su-aal la weydiiyo la sheekhow markaan qur-aanka akhrinayo ma qashuuco ma ooyn karo. iska doondoon ilan iska keenkeen. haddii aad iska keenkeentid berri way kaa imaanaysaa, waad jilcaysaa. maanta ma dhegaysatid qur-aanka, ma jeclid inuu marmar kuu soo gala ma ahane inaa every time kheyr ka dhegaysatid. ma jeclid inaa muxaadaro waqti badan ku qaadatid. laakiin haddii aad baratid ogow adoon ku tuuranin xitaa inaadan nafiseynin. waxaad rabtaa inaad waqti ku bixisid si aa u dhegaysato. waaga markuu saas u bari waxaa rabtaa inaad dhegaysatid. suuraddaa jeceshahay, sheekhaa jeceshahay inaad dhegaysatid. waayo qalbiga ayaad ka jilacday. qur-aankana waan ognahay inuu yahay daawo. ayadoo barbaleen ku haysto ayaa waxaad dhegaysanaysaa hees qayli iyo buuq kaleeta waayo, madax xanuun. markaasaa qofkii kaa hor imaada dil unbaad diyaar u tahay. laakiin adigoo barbaleen ku haysto fikiraya xitaa haddii aad qur-aanka shidid hadhow waxaa noqonaya waad qaboobay. allah subxaana wa tacaala ayaa dhahay wayunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa. qur-aanka daawo waaye. wax walbo adiga ku haysta ayuu daawo u yahay. barbaleenka adiga ku haystuu daawo u yahay. madaxa ku xanuuna ayuu daawo u yahay. waxaad tahay qofkii lagu dayanayay. dhalinyarada haddii ay istaagto ay u istaagto kheyrka, ma og tahay waddankao dhan inuu hagaagayo. haddii gabdhihii ay xijaabtaan dhalinyarada ahaa ay jirkooda ka asturaan ragga, wiilashina ay istaagaan kheyrka ay u istaagaan, wax walbo ay maqlayaan ay kheyr ka dhigaan, waddankao dhan wuu hagaagayaa. iga gaarsii walaal kasta oo bajaaj wada ama walaal kasta oo gabaari noocay ahaato wada fariintan adeeg kugu socotaa. walaal $50 yaa lagugu cadaabin. walaal lacagtaada yaa lagugu cadaabin. walaal waqtigaaga yaa lagugu cadaabin. subxaan allah, ilaahay nooma kaso. walciyaadu billaah min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaar. ilaahay waxaan weydiisanaynaa janno. allahuma innii as'aluka aljanna yaa raba alcaalamiin. walaalkayga qaaliga ah, fariintan waxaan kugu soo diray waayo waxaan kula joogaa waddankeena. maalin kasta ayaan raacaa bajaajkaaga. waxaan doonayaa inaan qalbigayga indhahayga aan ku arko, dhagahaygana aan ku maqlo, anna ku raaxaysto adiga qolkii allah kuu daaran yahay. xitaa aan ilaawo meeshii aan u socday. nooshida iftiinka oo naga daaya mugdiga. waayo heesaha waxay madoobeeyaan qalbiga.
qur-aankana wuxuu nadiifiyaa qalbiga, indhaha ayuu kuu nuurinayaa, irsaaqdan ilaahay subxaana wa tacaala waasac ayuu kaaga dhigayaa. ilaahay subxaana wa tacaala ayaa waasac kaaga dhigaya. miskiin ayaa tahay, faqiir ayaa tahay, maxaa kuu kalif inaad daabad wadid, inaad wax haysanna kuu kalifta soomaan? adigu saas aad tahay ha ku caasinin allah subxaana wa tacaala caza wajalla, hana ka quusanin naxariistiisa. waxaan rajaynayaa in uu idiin noqon doono barnaamijkan barnaamij idin qanciyo, tusaalena oo idiin noqon doono fideoga soo duubay. maanta horumar ballaaran ayaa la gaaray. gurigaaga adoo joogtid ayaa waxaad doonaysa dhegeysanaysaa. qof allaala sheekh rabta ku dhibsanaysaa. kaaga sii daran wax allaal waxaa rabtid adoo gurigaaga joogta ayaa baran kartaa. nadkaasaa ku baranaysaa. ayadoo horumarkaas la gaaray inaad ka qadsanaato soo dhibaato maahan. inaad ka qado khayrka la qaybinayo, soo khasaare maaha. hadda ka hor waxaan raacay bajaaj. mar walbana waxaan raacaa bajaaj hees ay ka daaran tahay. kas imaag ayaan u raacaa sababtoo ah walaalkay waxaan jecelahay inaan wax u sheego. walaal sidan xal ma ahan. sidan haddaa ku dhimatid kabar yaa kuu ballan qaaday cimrigaas dheer in aan xoogaa la sheekaysto, dhalinyaranimo aan ula sheekaysto, kadibna aan ka dhaadhiciyo. wiil ayaa wuxuu igu dhahay, waxaad ahayd gabadhii ugu horreysa oo idhaahda hees naga dhaaf oo wax ii naseexeeso wax ii sheegto. waxuu kaloo ii raaciyey gabdhaha maba soo raacaanba bajaajka haddii aysan ka daarnayn heestaas hadday ka daarantaha waa lagu soo raacaa, laakiin hadday hees ka daarnaynin cid ku soo raacaysa ma lahan oo waqtigii la iskama dhuminayo. waxaa lagu leeyahay walaalo hees maa kuu daaran, sameecad gadal ma kuu saaran tahay, maya nuu kala wad, abdheed ma watiidbo. ogsoonow inuuna abdheednimo ahaynin, jahli in dib loogu noqdo, in heesaha la dhagaysto, in xumaha la faafiyo, abdheednimo ma ahan. fideoga waa ku dheeraaday. walaalahayga qaaliga ah aad ayaan idin jeclahay, ilaahay dartiis ayaan idin jeclahay. social media uma soo galin magac iyo lacag, laakiin waxaan u soo galay inaan wax idin sheego. walaalahayga qaaliga aan kala faa'iidaysano biidnillaahi baari. waxaan idin leeyahay, waxaan nafteedii iyo naftiina u dardaarmayaa inaan wanaagga u leexano. waxaad dhageysatid way ku beddelaan, waxaad dhageysatid qalbigay u dhacaan. khayrka haddaad dhageysatid qalbigu u dhacaa. markaa iska damisid oo kaligaa meel fadhiisto kugu soo dhacdhacaa. sidoo kale hees haddaad dhageysatid. nafteedii naftiina waxaan u dardaarmayaa in ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa aan u toosnaano. insha allah biidnillahi albaari waxaan rajaynayaa inuu idin anfici doono fideogan. fadlan hadduu idin anfac sii sheergareeya si walaalihiina kale ay ugu faa'iidaystaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye bye.